السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارتا كسو دوادا كيستا تي في برنامج كله برنامج كينا المانتا وحان كو أبلين دونا إن شاء الله تعالى إسقا غبسيغا باحسن ودحية دولة فدرالكا سوماليا iyo dowladda Puntland oo iyadu ah federal member state ama dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ah haddaba waxaan fiirinaynaa joornaalada adduunka waxyaabaha ay ka qoreen waxaa arkaysaa ilaa 6 7 8 joornaal oo adduunka ka soo baxa oo English wax ku qora oo headline ka wada dhigtay isqabsigaas u dhaxeeya Puntland iyo dowladda federaalka ah so Puntland waa heavyweight sida ay muuqata kadib markii aan fiiriyay joornaalada oo dhan waxaan soo qaadanayaa kan ugu afka dheer dowladda Ingiriiska oo la yiraahdo The Guardian sida uu wax uga qoray isaga oo waliba soo xiganayo wareysigii uu bixiyay afhayeenka dowladda Puntland ama wasiirka warfaafinta Maxamuud Dirir buu mostly soo qaadanaya laakiin waxaan idin la wadaagayaa maanta waxyaabaha ay ka qoreen joornaalkan iyo sida ay u arkaan intaba haddii aad nagu cusub tahay don't forget inaad channelka subscribe tiraahdid I believe in 80% of you guys oo channelka daawada aadan subscribe dhihin no worries haddii aad hore noola joogtay don't forget to like and share the video aan ku bilaabo marka headlineka waxay ka dhigatay joornaalka The Guardian semi-autonomous state of Puntland state-ka Puntland oo isagu leh semi-autonomy autonomy waxaa la yidhahdaa madax bannaani full ama haysto laakiin semi half ayuu ka haystaa so semi-autonomous state of Puntland refuses waxa ay diiday buu yidhi to recognize changes to the fragile country's constitution and has withdrawn from the federal system waxay diideen waddankan cagaha badan aan ku taagnayn fragile country waxaa la yidhahdaa waddan caga badan ku taagnayn oo anytime jebi kara dastuurkiisii wax alaala wixii change oo lagu sameeyey ama bedel ah waxaana ay ka baxeen totally withdraw gareeyeen federal systemkii so federal systemkii bay ka baxeen laakiin dalkay ka baxeen lama oran oo ay qaybta kaga ahaayeen dowladda federaalka ah waxaa kale oo headlineka sii hoos yaalla fears of violence grow as Somalia scraps power sharing system cabsi ayaa laga qabaa in uu ay wax violence uu ka dhaco dalka kadib markii Soomaaliya ay baabi'isayba gabi ahaanba ama dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay raahdeen dowladda federaalka ah ay totally baabi'isay power sharing systemkii lagu share gareynayay ama lagu qaybsanayay awoodda dalka marka waxa uu sheegay waxay qoreen an overhaul of Somalia's constitution dastuurkii Soomaaliya in overhaul ba lagu sameeyay gabi ahaanba la bedelay scrapping its power sharing system oo baabi'iyay systemkii lagu share gareyn jiray powerka and handing the president increased control isagoo kaasoo siinaya madaxweynaha dalka Soomaaliya in uu awoodo extra ay yeesho is threatening waxay threaten gareynaysaa to destabilize the fragile country waddankan markiisii horeba aan cagaha badan ku taagnayn in uu sii kala tago waxay qorayaan Puntland is the wealthiest waa state-ka ugu dhaqaalaha badan and most stable uguna amniga badan Soomaaliya dalka la yiraahdo waxa kale oo ay soo qaateen Maxamuud Dirir told the Guardian in wareysigan inuu u sheegay Guardianka almost a totally new constitution dastuur cusub oo almost wax yar ka dhiman yihiin has been introduced without input from the state's leaders iyada oo aan state-ka lagala tashan ayaa dastuur cusub dalkii la hor keenay Puntlandna aysan qayb ka ahayn aanan lala wadaagin so he accused the Somali president Hassan Sheikh Mohamud of using parliament to gather authority into his hands in uu baarlamaanka u isticmaalay Hassan Sheikh Mohamud in uu awoodda oo dhan ku soo ururiyo gacantiisa isaga oo baarlamaanka u isticmaalaya ama u marayo meeshaas waxaa ka maqan state inputkii federal member stateska memberka ka ah dowladda federaalka ah waxaa ka maqan inputkoodii iyo in ay wax laga weydiiyo dastuurka hadii maadaama dadka lagu
xukumi doono dastuurkan uu yahay dadka degan stateska oo dowladda federaalka ah aysan state gooniya gacanba ku hayninba dalka saa wada ogtihiin Puntland iyo Southwest iyo Jubaland iyo galmudug iyo hirshabeelle ayay kulay dadka ku nool yihiin lagu maamuli doono dastuurkan inkastoo oo xildhibaanada ay matalaan dadkaas oo xaafadahoodii ay ka soo dirsadeen haddana the states member stateska waxay ku leeyihiin input in loogu daro ay ahayd bay leeyihiin journalka uu qoraya meeshaas iyada ah dhaliil ayaa uga timi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah inuu maroorsaday awooddii dalka haddii aan kusii soconno wuxuu yidhi the parliament speaker Adan Mohamed Noor Madobe called the move historic baarlamaanka baasintiisii uu baasiyey dastuurka Adan Madobe wuxuu ugu yeeray baasin taariikhi ah oo aan hore loo arag so ninka la yiraahdo Maxamuud Dirir oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri we are a fragile country wadan waxaan nahay caga badan aan ku taagnayn still recovering from a civil war dagaal sokoyna ka soo kabanayo which doesn't have stable politics siyaasadeenana siyaasad fadhida ma aha so if power is concentrated in one person's hands hadii powerka la isugu geeyo qof gacantiisa there's a risk we could go back to civil war waxa qatar loo galaya ama dalka uu qatar u galaya in uu dalkan face gareeyo dagaal sokeeye mar labaad we have always warned that this could happen mar walba waxaan uga digaynay dowladda federaalka ah in arrinkan uu dhici karo sidoo kale madaxweyne xasan wuxuu ku eedeeyey Maxamuud Dirir in uu kala wareegay powerkii baarlamaanka maadaama prime ministerka aysan markii uu soo magacaabo ama uu ceyrinayo midna aan la soo marin doonin baarlamaanka oo awoodii baarlamaanka ayuu ka xayuubiyey asaga oo gacanta ku qaatay madaxweynaha in uu ra'iisul wasaaraha markuu rabana keensan karo markuu rabana uu ceyrin karo so waxa kale uu ku eedeeyay madaxweynaha in uu jagooyinkii oo dhan isku duduubtay isaga marka tan waxay ku tusaysaa meesha la kala joogo wuxuu yiri he's the foreign minister madaxweynaha ayaa madaxweynihii wasiirkii arrimaha dibadda the prime ministerka the president madaxweyne isaga ah and all the ministers iyo wasaaradaha oo dhanba isaga isku ah and now he's taking power from the states markii uu soo dhameystay madaxweynaha in uu awoodaha kala wareego baarlamaankii wasiirka arrimaha dibadda madaxweynenimadii iyo wasaaradihii kaleba wuxuu hadda u soo dhigtay inuu awoodda kala wareego stateska ama federal member stateska ka midka ah dowladda federaalka ah waxaa la weydiiyey in ay ku dhawaaqayaan inay independent ka yihiin ama independence Soomaaliya oo ay ka madax bannaan yihiin marka wuxuu yiri we are not declaring independence madax bannaani kuma dhawaaqayno but Puntland will stand alone until it's consulted Puntland waxay goori u taagnaanaysaa inta lagala xaajoonayo arrimaha dastuurka iyo wax ka bedelkiisa iyo aan iraahdo ansixinta dastuurka cusub so arrinkan qabsiga ah meel fog ayuu marayaa sida hadda arkaysaan journalka The Guardian ayaa waxaan qorayo sidoo kale ay qorayaan waxaad moodaa arrimaha Soomaalida inay aad ugu dhuundaloolaan sababtoo ah waxay qorayaan in safiirka Ethiopia iyo qonsuladaha la xirayba ay tahay kadib markii Puntland madaxweynaheeda uu aaday Addis Ababa taasna su'aal ayaa laga keenay markii Somaliland ay badda gaday maxaa loo ninka loo ceyrini waayay su'aal kale ayaa laga keenay oo had markii uu Soomaalida u gafay ninka safiirka ah oo uu lahaa Ethiopia ay ka mid yihiin oo Soomaali wax la yiraahdo ma jiro gumeystihii baa sameeyay maxaa loo ceyrini waayay taasna waxay keentay su'aal kale journalkana si aad ay uga warqaba because wuxuu leeyahay in a sign of escalating tensions the Somali government on Thursday ordered the closure of Ethiopia's consulate in Puntland and iyada oo rabto inay kor u qaado dagaalka ay kula jirto dowladda Puntland ayaa waxa ay dowladda federaalka ah ceyrisay safiirkii waxayna sheegtay inay xirayso qonsuladaha ay ku leeyihiin Garowe iyo Hargeysa taasna waxa ay Puntland u aragtay in ay tahay retaliation talaabo ka argoosi ah oo looga jawaabayo madaxweynaha
Puntland oo tagay Addis Ababa oo heshiisyo la soo saxiixday so waxay sheegtay Puntland inay tahay la sameeyay 1998kii waa iska taariikh and it's the country's most powerful regional administrationka ugu awooda badan oo dalkan Soomaaliya uu leeyahay maamulka ugu awooda badan ee dalkan Soomaaliya uu leeyahay waa Puntland bay tiri journalka so Dirir said concentrating authority in Mogadishu threatens national unity awooda in la isugu geeyo dawladda Muqdisho oo Xasan gacanta uu ku wada qabsado waxa ay dhibaato ku tahay bay yiraahdeen wadajirka dalka inuu sii wada joogo our government is federal which means powers are divided dalkan dawladdiisa waa federaal taasoo micnaheeda ay tahay in powerka uu qaybsan yahay qaybna ay leedahay dawladda federaalka ah qaybna ay leedahay dawladda dawladaha memberka ka ah oo stateska ah so waxa uu sheegay dad badan ayaa la wareystay journalka afyare cilmi ayaa ka mid ah if a large chunk of the country is missing in this process we're simply building a constitution for South Central Somalia afyare ayaa waxa uu sheegay in waa professor jaamacad dhiga jaamacadda wuxuu dhigaa City University of Mogadishu isaga wuxuu sheegay haddii dalka intiisi badnayd ay maqan tahay ama large chunk qayb weyn oo ka mid ah oo uu ka waday Somaliland iyo Puntland inay maqan yihiin dastuurkan la qoraayo waxaan u qoraynaa buu yiri South Central Somalia koonfurta iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya kaliya ay dastuurkan iska lahaanayo marka dastuur loo dhameystiran yahay ma aha journalka uu dheer yahay qoraalkiisa international crisis group Umar Mahmoud ayaa sidoo kale ka hadlay there are fundamental issues about the nature of the federal model that must be sorted between Mogadishu and Garowe waxa loo baahan yahay buu yiri in waxyaabo badan ay ama isku raacaan ama ay isku diidaan oo laakiin in la kala guro waxa u baahan sorted out between Mogadishu and Garowe oo u dhaxeeya Mogadisho iyo Garowe waxyaabahaas waa fundamental buu yiri waxa la isku hayo dawladda federaalnimada ahayd ayaa la isku hayaa so waxay ku soo koobeen hadalka without the sides talking haddii labada gees aysan wada hadlin it's impossible there allowing the status quo to continue indefinitely and in xaaladda hadda lagu sii jiro ay sii jirto waxa uu sii dheereynaysaa dal la'aanshaha Soomaaliya iyo wada socodka iyo unity-gi Soomaaliya so waa in la wada hadlaa buu leeyahay Puntland waa in Garowe inta loogu tago lala soo hadlaa si loogu qanciyo cabashadana loo dhageysto looguna qanciyo dastuurka waxyaabihii laga bedelay oo ay ku sheegeen journalka uu ku sheegay waxyaabo fundamental ah oo asal ah in la isku hayo intaas ayaan ku soo koobayaa arrinkii uu ka qoray journalka The Guardian arrimaha la isku hayo ee dawladda federaalka ah iyo dawladda Puntland ay isku hayaan waa arki doonaa insha Allah taala wixii kale oo ka soo kordha waa idin salaamayaa don't forget to like subscribe and share the video insha Allah wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh